السلام عليكم داوadayaal waa tahay soo dhawaada asxaabay maanta barnaamijkeenu waxa ku saabsan sheeko cajiib taas oo ku dhacday boqor magaaladiisa deganaa say dhiirigelin ugu noqoto fadlan video walaak sarsiina sheer gale maalmaha kamida waxa jiray nin boqor ah oo xukumi jiray meel buurale ah boqorku wuxuu ahaa nin maamul guracan oo dadkiisa dhibi jiray mana jeclay in runta loo sheego qofkii maamulkiisa wax ka sheega wuxuu mudan jiray xabsi dheer ama waa u dili jiray sidaa daraadeed dadku way ka baqi jireen inay runta u sheegaan boqorka maalintii dambe ayaa nin baran la yiraahdo u baxay magaalada duleedkeeda si uu soo kormeero beer weyn oo halkaas ku lahaa waqtigu wuxuu ahaa xilli go'a oo barwaaqo ah ninkii sidii u soo socday ayuu soo dhex galay kayn jiq ah oo shimbiro kaliya ka dhex heesayaan markii barre xoogaa dhex socday kaynta ayaa wax la hadleen inta uu yaaba ayuu eegay hareerihiisa waxna ma uusan arag haddana mar kale ayaa lala hadlay sidii oo kale ayuu hareerihiisa eegaysnaa markii uu dhowr tallaabo qaaday ayuu arkay madax go'an oo kaynta dhex yaalla oo la hadlaya ninkii baa carar maagay haddana wuu istaagay marka ayuu madaxii hadlay ku yidhi nin yahoy maqal boqorka magaalada xukuma runta ma jecla qofkii runta sheegana wuu dilaa anigana waxaa la igu dilay boqorka iyo maamul xumadiisa oo aan cambaariyey kadibna madaxii waa u aamusay barre oo maqli jiray maamul xumada iyo cadaalad darrada boqorka lagu xaman jiray ayaa xaqiiqsaday in wixii laga sheegi jiray ay dhab yihiin markii uu galabtii magaalada ku soo laabtay ayuu uga warramay saaxiibadii wuxuu maanta soo arkay warkii ayaa fiday oo qofba qof u sheegay ugu dambayntii warku wuu gaadhay boqorkii oo aad u yaaban ayaa ku yidhi shaqaalihiisii bal igu yeedhay ninka beenaalaha ah ee yidhi waxaan arkay madax hadlaya barre ayaa loogu yeedhay boqorkii wuxuuna weydiiyey madaxa kula hadlay ma wax jiraa mise waa hadal aad adigu samaysatay maxaadse bulshada jahwararka u gelisay oo weliba aniga aad beenta iga sheegtay barre oo aad u naxsanayaa boqorkii ku yidhi boqorow aniga oo kayn halkaas ah maraya ayaa uu madax go'an ila hadlay oo uu igu yidhi boqorkaydu xukumo runta ma oggola qofka u sheega wuu dilaa anuuna run aan kuu sheegay ayaa laygu dilay boqorkii oo cadho darteed wejigiisa isbeddelay ayaa ku yidhi ilaadadiisii weligii ninkan ka hor ma maqal qof dhaliilay maamulkayga anuguna awal waan ogayn in aanu madax la jaray hallay ee ninkani waa nin ku tala galay inuu naaflagaadeeyo been abuurka uu nagu sameeyeyna wuu ka shallaayi doonaa haddana ha lay dhaafiyo oo ha la dilo oo dib dambe yaanan u arkin halkii ayaa barre isagana lagu dilay oo seef madaxa lagaga gooyey dadkii magaalada deganaa markay maqleen in barre la dilay ayaa waxay ogaadeen in boqorka uusan jeclay in runta loo sheego qofkii runta sheegana uu dilayo dadkii intay cadhoodeen ayaa ay go'aan wada jira ku gaadheen inay habeen madow boqorka magaalada uga guuraan ugu dambayn boqorkii oo boqortooyadii ka baaba'day ayaa ka qoomameeyey xadgudubyadii uu u geysan jiray muddo kadib boqorkii isagoo gaboobay ayaa meel cidlaa darxumo ugu dhintay mucda aynu ka faa'iidayna daawada sheekadan ayaa ah inaana dulmin cidna si ay dhiirigelin noogu noqoto fadlan video walaak sarsiina sheer gale wasalaamu calaykum